السلام عليكم أصحابي وإذن وذا السلام ميل كستو aad joogtaan marka dada waxay isoo weydeen landlordka wuxuu leeyahay gurigayga iiga guur marka guriga waxa waaye dadka waxay hadda aga rarayaan warqada section 21 ki ayaa dhamaan rabto sharciga la bedeli rabaa marka intaan sharciga la bedelin ayay waxay rabaan in ay dadka gurigooda iiga guur ay dhahaan guriga hadda sabab uma baahna gurigayga waa u baahanahay waan gadanayaa wuxuu rabo dhihi karaa no fault eviction ayaa dhahaa haddan section 21 ka marka fadlan landlordka guriga sharciga kugu dajiyay aadna ku degan tahay aad saxiixday asna oo saxiixay sharci waa inuu kaaga saaraa oo saddex talaabo soo maraa digniin oo ku siiyo digniintaas kadib section 21 oo ku siiyo section 21 ka kadib bailift inuu ku imaado maxkamad aado oo muxuu ahaayay maxkamadaasi tood warqadaas maxkamadda ka timid bailiftiga waxa ku qoran taariikh iyo saacad taariikhdaas saacadaas ka hor kama guuri kartid haddii aad guri council ka raadsanaysid waayaa haddaadan ka raadsanaynin oo guri adiga aad iska raadsanaysid oo ikhtiyaarka ma orkaa rabtaa ka guuri kartaa digniintaada markay ku dhammaato laakiinse haddii adiga aad ka guurto councilna guri aad ka raadsanaysid ka hor aad ka guurto guri la'aan adaa iska dhigtay ha ka guurin ilaa waqtigaasay tood oo muxuu ahay ka hor ha ka guurin iska ilaali marka yaan laga guurin guriga yaan laga guurin waa kan odagan wuxuu idin leeyahay maya oo idin leeyahay salaamu calaykum